laakiin hubkan halkaas uu yaalay maalintii dani ay labada gaari oo baradhada ku sheegay oo gashay midna qoryaha ahaa midna uu rasaasta ahaa halkaas uu yaalay magaalada qurac joome afartii gaari oo waaweyn oo xamuul oo qafileen buntland laba yahay tan waa afar xamuul weyn ama koonfur galbeed gaata markii koonfur galbeed ilama hayna gadatay hay maamul caalamka u tuurtay wax oo xiriir iyo galaangal carabaha u soo qaraab tagi ilaa imaaraadka iyo dhulkaas yar ordi karana ma yaha xiriirkeeda ajnabi ee shisheeye waa Ethiopia ka dhamaa ku bilowdaa kuna dhamaada Ethiopia waxa qaybiso waa hubkaas hubkii marka way keentay dadkii shacabka markay kaceen ay dhaheen hubkan iyo gaadiidkan maxay yihiin dadka waxa lagu yiri bakool baa loo socdaa bakool baa lagu wadaa gaadidina waxay wadaan ceel riiga oo bakoolna ka qodna rabo waata ceel riiga afar gaari oo waaweyn waxna milayaal inta lagu soo qaadaa ciidan lagu ilaalin lahaa waxaad moodaa in Ethiopia ay toos dagaalkeedii hadda oo bilowday iyadu soo dadajisatay waata dagaalkeedii toos bay bilowday Soomaaliya January bay la sugaysay iyo balinta Masar iyo wax la sameeyay qoladan baxal la oran inay baxaan ay diidayaan waxbay la sugaysay laakiin Ethiopia tiimayna wala sugay toos bay u sii qalabaynaysa dadka u dagaalami lahaa dadka Soomaalidu waa isku wada fikir waa isku wada wadaniyad intooda badan waa isku wada wadaniyad hal ahmar dhalay markii laga reebo intooda badan waa isku wadaniyad dambi ka weyn ma garanayo askari wadan jooga inuu wadan kale calankiisa intuu bartaa ku xidho oo calankii maamul goboleedkan hoos dhigo oo sida ku dhaqaaqo oo muuqaal duubo oo aan talaabo laga qaadin bal ee hadana safarkii madaxtooyada madaxweynuhu uu galay uu ka sii qayb galo isagii oo waliba maxaan ku dhahaayay ku faantamaya dawladda xasan haday tahay haday wax nacabta reer koonfur galbeed ma nacba ciidanna ma nacba lafta garan bay nici karaan lafta garanna waa shakhsi bay isku dhici karaan ninkii farmaajo ilaalada wahay daba taagnaa umba xasan daba taagan shakhsi ma ilaalinaya kursigu ilaalinaya marka wareediku kursiga ilaashada lafta garan ha ilaalinina lafta garan uu dhiman karaa lafta garan mushaar buu saayay la joogan samo kursigaas iyo lafta garan ma siiyo kursiga madaxweynaha yaa siiya iyaga iyo madaxtooyada iyo shaqadooda iyo xirfadooda iyo kursiga ku fadhiya lafta garan hadduu ka tagana kursiga baa siinaya iyaga ku soo dhawow Royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxa ay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faafahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xog waran barnaamijka qaybtan haddii ay baha wadada ogolaada inta uu socdo waxaan ku eegi doonaa mar kale Ethiopia qaybo ka mid ah Soomaaliya ayay gawaadhi hub ah galisay waa halkee meeqa gaari weeye hub inta leeg bay wadaan khatar inta leeg bay Soomaaliya arintani ku tahay arimahaas ayaan eegi doonaa haddii ay baha wadada ogolaado iyadoo horey aad u ogeydeen in ay idin la wadaagnay dadkuna in badan oo kamid ay ka dharagsan yihiin oo ay og yihiin in qaybo kamid ah Soomaaliya ay sacad hub u galisay wax kamid ah Puntland iyo Galmudug kan kale xagee galisay meeqa gaari weeye intee leeg yahay ujeed intee leeg baa laga leeyahay khatar intee leeg buu Soomaaliya ku yahay صاحبك عبد الرحمن دينعي فديه oo xogta oo dhameystirnaya isagana wax ka weydiin doona haduu ay baa wada loo inta barnaamijka socdo soo waa saaxiib Cabdi Xasan Dhuw waata Ethiopia marka hubay Soomaaliya galis xagee galis hubkan hubkan dhawaanahan xogtiisu si hoose u soo dusdusaysay mar dawladda Soomaaliya waxay ku sheegtay inay markii Puntland la gelinayo hub kale hadana koonfur galbeed la geliyay hubkii dawladdu sheegaysay buu ahaa حرر كاميرات سوقت مياه يا كاميرات سوقت مياه ما هو سوست عدو حكتم بدولة اللوجية نحن سجل نحن سجل سهون سوق قاعدين هي حكت اللي هلا هو كان وحيا الحرر الميليتريا بريجيدك مقالة الجودي عاصمة قبل كشبيل حلقة وكيد دنيا اللي
jigjiga kana halkaasuu yaal sabab loo dibdhigaya in isku mar la geliyo in la rabay iyadoo isku mar ba hadda mid walba uu diyaar ku noqday midna xerada garab casu diyaar ku noqday jigjiga midna wuxuu diyaar ku ahaa xeradan brigade-ka ee magaalada Goday labada hub oo meesha yaala in hal mar la wada gelinayay cilada kan ka reebtay indhaha caalamka in la kala qarinayay taas ilaahay bay naga garan laakiin hubkan halkaas uu yaalay maalintii dani ay labada gaari oo baradhada ku sheegay oo gashay midna qoryaha ahaa midna uu rasaasta ahaa halkaas uu yaalay waatay hubka dani waxa la ogaaday kolkii ila u dhunduleelo oo xerada garab cas ku ogaaday laga reebo waxay shacabku ku baraarugeen kolkuu degmada booq yaalay oo maxaan ku dhahay is rasaasayn dhaxmartay meeshaas iyaga iyo ciidankii waday lagu ogaaday waatay kana waxaa la ogaaday magaalada Qurac Joomo oo ka tirsan degmada Mustaxiil kana xigta dhanka koonfureed oo waliba hore ka soo markii uu soo istaagay yaa la ogaaday Qurac Joomo waxa isugu yimaada jidad ka yimaada xagga iyo Boqol iyo jidad ka yimaada xagga iyo Hiiraan qiyaastiina waxay la siman tahay ama ku dhowdahay degmada Feyrfeyr oo dhanka koonfureed ka tahay waxayna ka tahay dhanka galbeedka ama waxaan dhanka qorrax dhaca iyo ka tahay webigan Shabeelle oo dhanka qorraxsinka kama ay ah magaalada Qurac Joomo afartii gaari oo waaweyn oo xamuul oo qafilan Puntland laba yahay kan waa afar xamuula weyn ama koonfur galbeed gaatay markii koonfur galbeed ilama inay gadatay ilaa ugu sii markaa ilama inay gadatay waxa lagu sii ma darahayn way gaatay Puntland mid bay gadatay midna bilaash baa lagu daray waxa tii qoryaha way gaatay rasaasta loo subis baa la qolada marka masubis isugu jirtaa qoryihi mise qolyahan ilama inay shilin ka bixiyeen koonfur galbeed meel dhaqaale soo saar leh ma ah dawladda federaalkiina waayahan intii yarid mina u soo deeynin koonfur galbeed waxay uun hadda ku wati leedahay waa uun si ilaahay xaalkeeda og yahay dekadna ma laho dekada hadda de baraawe dawladda federaalka iyo haysata dekad marka sida Puntland madax banaan oo garacad iyo Boosaaso iyo hebel la dhihi kara ma ah maamul caalamka u tuurtay wax oo xiriir iyo galaangal carabaha u soo qaraab tagi ilaa imaaraadka iyo dhulkaas yar ordi karana ma aha xiriirkeeda ajnabi ee shisheeye waa Ethiopia ka dhamaa ku bilowda kuna dhamaada Ethiopia waxay qaybiso waa hubkaas laakiin marka way keentay lama hubo ama xaqiijinta ma hayno sida rasmiga ah walow fariimo fara badan oo soo gaariyo hubkaas ku saaban ay jiraan hubkan inuu Goday taagnaa Ethiopia inay waday inuu hadda Qurac Joomo taagan yahay dadkii shacabka markay kaceen ay dhaheen hubkan iyo gaadiidkan maxay yihiin dadka waxa lagu yiri bakool baa loo socdaa bakool baa lagu wadaa gaadiidna waxay wadaan ceel riiga oo bakool la qodna rabo ceel riiga afar gaari oo waaweyn ana milayaal inta lagu soo qaadaa ciidan lagu ilaalin lahaa wali marka koonfur galbeed ma soo gaarin gudaheeda wali ma soo gaarin Qurac Joomo taagan yahay wali waa gobolka Shabeelle taagan yahay maxaa la sugay marka inuu galo ya soo galnay marka sidii Puntland bay koonfur galbeed ciidan u diri mise Ethiopia ay soo galin Ethiopia de koonfur galbeed u joogtay Puntland waxa sababay in ciidankeeda loo diro Ethiopia dhex deganay marka tan Ethiopia xadba kuma laha xaq koonfur galbeed ciidankeeda xaq nagu jooga marka wadanku meel kasto ciidankaagu joogo wadankaaga ahaan bad uun kaga xisaabtami meel inta ciidankaaga ka tagto ciidan kale ay kula wareegayaan ma aha marka sidan hadda ay ku wadaan un bay ku gelinayaan laakiin aqal xumada waxay ku sheegeen riig weeyaan bay dhaheen khatar inta lag baa hubkan ku gadaaban Soomaaliya iyo Ethiopia xaaladoodu waxay ku siisiqaysaa marba mar ka dambaysa meel khatar ah khatarihii mid ka mid ah weeyaan tani waxaad moodaa in Ethiopia ay toos dagaalkeedii hadda u bilowday iyadu soo dadajisatay dagaalkeedii toos bay u bilowday Soomaaliya January bay la sugaysay iyo balinta Masar iyo wax la sameeyay qoladan baxal la oran inay baxaan ay diidayaan waxbay la sugaysay laakiin Ethiopia tiimayna wala sugay toos bay u sii qalabaynaysaa dadkii u dagaalami lahaa waqna groupki u dagaalami lahaa toos bay u sii qalabaynaysaa
waxay ka gelisay hadda 3 meelood galmudug bay gelisay oo dadka iyadu rabtay marka iyada gacanta u gelisay waxaa kale gelisay Puntland waxaa kale gelisay Koonfur Galbeed waxaa kale gelisay meesha la yiraahdo Somaliland oo iyadana la arkay xalay ciidamo calankii Somaliland halkan loogu dhajiyay oo ciyaar sameeynaayo oo laga dhigayo ciidankii Somaliland oo korka iyar wadeenay sida Soomaalida kolba lagu qaadeen markii dambe garbaha ka ciyaar sida xamaaradii oo faar soo qabatay hiiraanna dee wayba joogaan oo hiiraanna inay geliyeen la dhowr jeer waa la soo sheegay marka Ethiopia waxay gashanaysaa waxay cabaynaysaa Soomaaliya kolka cabayso labadaba way leedahay in Soomaaliya dhexdeeda isu qaadato dee nin wax cunay xisho afar cunay xisho noqoto oo Koonfur Galbeed dawladda federaalka oo kala soo horjeedsato waa dhici kartaa natiijo aan badnayn percentage aan badnayn iyo suurtagal tahay in Ethiopia oo lagu jeedsadana waa natiijada badan iyo sida macquulka ah oo Soomaaliya hadii la jiheeyo jihayn la'aan baa jirta dawladda federaalka ma ayna jihaynin maamul goboleedyada inkastoo maamul goboleedyada laftoodu dhaliilo badan leeyahay ay jirto hadana dawladda federaalka dhaliisha ay leedahay ugu weyn maalintii ay meeshan qabanaysay dhammaan maamul goboleedyadu gacanta ku wada jireen dani baa maqnayn lafta gareeman Ethiopia aqoonin ku kalaan way gacanta ku wada jireen jihayn la'aanta iyo maxaan ku dhahaayay kala faquuqa ya waxba marka in meesha midho ka yiri hadii laakiin la jiheeyo oo dibiga gowrac weesha ku qos qaadata ay noqoto oo madaxweynayaashan iyo hawlahan iyo waxay ku qanacsan yihiin iyo la jiheeyo dadka Soomaalidu waa isku wada fikir waa isku wada wadaniyad intooda badan waa isku wada wadaniyad hal ahmar dhalay markii laga reebo intooda badan waa isku wadaniyad ubadkoo yaraanta lagu bara asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna carruurta ka caawinayaa casharada guriga ama homework hadduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxa sidoo kale carruurta laga dhisayaa quraanka kariimka iyo culumta islaamiga Caasha iyo Cabdow calaalka daaya oo carruurtina la gaaraha idinka cajabiye wixii faafayntaasi dheer kala xiriir numberka shaashada ka muuqda marka gobolada waqooyi Somaliland inay Ethiopian xaq jir ahiin looma sawirayo Ethiopiaanki shacabka ahaa gobolada kaliya guryaha ka saaray dadkooda guryaha ka saaray waa reer Burco iyo Hargeysa Boosaaso lagama saaray guryaha Ethiopiaanki Baydhabo lagama saaray Muqdisho lagama saaray Garowe lagama saaray laakiin Hargeysa iyo Burco dhaxdeeda dadkii shacabka ahaa ee Oromada iyo Axmaarada iyo Ethiopiaanka ahaa ee muruqmaalka ay meesha deganaa yaa la soo saaray farq la soo taagay waxaad ka garanaysaa dun macaanka shacabka meesha ku nool dun macaanka iyo inuu dadku isku wada fikir yahay in maamulaha Muuse oo kale iyo markii laga tago dadku waa wada Soomaali dawladda federaalka laga rabaa inay Soomaalida jihayso waa inay update la siiyo dadka oo la yiraahdo halkaas naga dhawra waata waxaan imaanaynaa Koonfur Galbeed shirkii kulay wuu furmay dad ujeedadana shirka maaha arrimaha gadaaban madaxweynaha Koonfur Galbeed si uusan awal u tagay jirin buu u tagay garoonku dhex tagay hub badan iyo ciidan badan ayuu ka haystay ciidan kiisa qayb kamid ah markay ka baxayeen Baydhabo mid kamid ah wuxuu duway muuqaal u leeyahay meel laga jecel yahay ka tagayaa meel laga necab yahay oo xamil ula jeedo yaan tagaya Orombo ah ayaa dhaxdaas ahana waa kii uu mid kale calankii Soomaaliya iska furay oo Ethiopia ku xidhay waxa soo fariimaha markii la fiiriyo maxay ka turjumayaan maxay muujinayaan waxay ka turjumayaan aragti gaabni iyo nacayb dhalinyarada Hargeysa joogta waxa ay odayaasha Soomaaliya heestiba dad qaar u daray Garowe ku xintama Axmar baa iga xigay Hargeysa kuwa jooga dadka nacaybka ay ku ridayaan oo kale yaa deetana maamulka Koonfur Galbeed oo dhalinyarada iyo ciidanka nacayb ugu ridayaan nacaybka lagu ridayaan waxa weeyaan askarigani wuxuu noloshiisa ka helaa meesha madaxtooyadu shaqeynayo madaxweynahaasi hadii uu meesha ka baxo waxa la tusayaa inay ka noloshiisii soo dhamaatay
sida daraadeed inuu ama dhinto ama madaxweynaha meesha ku hayo ku difaaco yaa wiilkan la kala dooransiinayaa oo irsaaqadiisii oo dhan ba inay dhamaatay ahaan baa la tusayaa wuxuu marka wejigiisa u fiiqayaa oo sumcadiisa iyo wixigiisa dhan u gadanayaa inuu wax kasta oo madaxweynahaas uu ku fikirayo oo isagu muujiyo wadaniyadiisa lama barbaarinin waxbarasho looma samaynin qadiyad waxay tahay iyo wadan waxay tahay iyo calan wuxuu yahay lama barin دريسك وقوة دريسك نيو بوليسك ديانك الصومالي ده حكى أصلا لو كنا دريسك إذا ماذا الصومالية ما حتى دريسك وقوة أنت عمرك اللي جاي يموت دم بكوين ما جرانيو أسكري ودن جوه إنه ودن كلا علن كيس أنتم برتع كحده وعلن كي ما من قبلات كان هاس نجوا وصدا كل دقائق أو مقال دوبه وأن طلابة لقى قاعد بل هذا السفر كي مدحتويه ده مدحوينه وقلي وكاسي قيب قلا isagii oo waliba maxaan ku dhahaayay ku faantamaya inuu sidaa yahay calankii Ethiopia kormariyay calankii dawlad goboleedka Koonfur Galbeedna hoostu dhigay sidaa isagoo ka dhigay iyo haddana wuxuu ku faanay in maxaan ku dhahaayay Ethiopia ana marka waxaan islaaw Soomaaliya ma yaqaan waa Ethiopian oo bahdilayo calanka Koonfur Galbeed kas meesha ugu dhufanay Soomaaliya wuu ku hadlay haddana wuu noqday waxa kale oo ka sii daran reer xamar maxay nacabeen ma nacba كونفور قلبيت بين النعبين حمر كمان هندي لكن دولته كل دولته ما يعملوا جد لكن دولته حسن دولته اسمه رنك الدولة مدحوين حسن ليش قادن كرتو دولته حسن هدي واحنا عيبتها ريا كونفور قلبيت ما نعبا عيدنا ما نعبا لفتر قرين بين عكران لفتر قرين هو شخصي بقى يسكن عكران دورشده هذا الروب وهدو يماد او ماشي قبصدو ما كونفور قلبيت بلا نعي اسمه بدل كونفور قلبيت شخصي كرسي قام بس بدلي دلنيرادن اسكرتا عبد العزيز لفت قرين لا سocota waxaan ku waanin lahaa way degdegeen horta inay isjoojiyaan iyaga looma socdo inay isjoojiyaan hadii uu yimaado ninka la yiraahdo nin kala madaxweyne Koonfur Galbeed hadii yimaado ka aan bay ilaala u noqonayaan iyagu madaxtooyada iyo guriga ilaala ka yihiin hebel kama ah ninkii farmaajo ilaalada waxa daba taagnaa umba xasan daba taagan shakhsi ma ilaalinaya kursigu ilaalinaya marka wareedinku kursiga ilaashada lafta garan ha ilaalinina lafta garan uu dhiman karaa lafta garan mushaar buu saayay la joogan samo kursigaas iyo lafta garan ma siiyo kursiga madaxweynaha yaa siiya iyaga iyo madaxtooyada iyo shaqadooda iyo xirfadooda iyo kursiga waxa ku fadhiya lafta garan hadduu ka tagana kursiga baa siinaya iyaga lafta garan waxa ma siinay wax reerkoodu ilaahay lafta garan uu soo qaaday dukaanka lafta garan ka shaqeeyaan soo kursi madaxtooyada ilaalin iyaga lafta garan waa isku xuquuq weyn shaqada isku xilli bay soo galayaan isku xilli bay ka baxayaan isma dulmi karaan waa in sida ay u ogaadaan lafta garan uu tagi karaa wadkiisa ana qaadi kara xilka laga qaadi kara isaga maxaan ku dhahay istiqaalan karo iska casili kara dana kale u qabsan kara lafta garan wajigiina ku waayna dhalinyarada intaasan ku waaninaya dadka shacabka ahna yaa sawir xun la tusi Soomaalidu waa Soomaali isjacaylka hala tuso maalintii kala fogeyn la tusi lahaa lama joogo maanta maalintii waxaa la tusi lahaa in Soomaalinimadu kaliya tay waxaan dugsan karnaa in la tusaay ahayd marka Soomaali meel kasta ay joogto hala isu keeno aad u maasantay wahada wadayaal qodobkan intaas ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe waxaan ku dhaafanaa siyaas iyo nabadgeliyo